wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa wehel cusub media ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo ku saabsan dawladda Kenya oo qaaday tallaabo ka dhan ah khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Dawladda Kenya ayaa xoojisay ammaanka xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya kadib iska horimaadyadii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ku dhaxmaray deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha dawladda Kenya ayaa walaac xooggan ka muujiyay in xaaladda ay ka sii dari karto maalmaha soo aadan kadib dagaalkii Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay Ras Kamboni oo ay ku jabeen ciidanka dawladda Soomaaliya. waxaana dagaalkaasi Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Ras Kamboni uu sababay in askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya oo ka cararay deegaanka Ras Kamboni inay isku dhiibaan ciidamada dawladda Kenya gaar ahaan kuwa ku sugan xuduudda. sida ay sheegtay dawladda Kenya ugu yaraan 600 oo askari oo ka tirsan ciidanka federaalka Soomaaliya ayaa isku dhiibay Kenya fiidnimadii habeenkii Arbacada ee la soo dhaafay. iska horimaadkan oo bilowday subaxnimadii Arbacada ayaa ciidamada Jubbaland waxay cagta ku mariyeen xeradii Ras Kamboni ay ku lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyagoona gacanta ku dhigay askar ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. sidoo kalena la tilmaamay inay gubeen gaadiid dagaal halka qaarkii baxsadayna ay u galeen dawladda Kenya. dawladda Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in isku diyaarinayso qulqulka qaxootiga Soomaaliyeed ee ka soo cararaya xiisadda ka taagan xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ee u dhaxaysa Jubbaland iyo dawladda federaalka. waxayna sheegtay in dadkii ku noolaa tuulooyinka ay dhibaatadu ka dhacday inay isaga soo cararayaan guryahooda. dawladda Kenya ayaa sidoo kale ciidamo aad u fara badan oo kuwa ammaanka dalkeeda geysay xuduudka ku teedsan Soomaaliya si ay wax uga qabtaan dhibaatada ka taagan xadka iyadoo laga cabsi qabo in colaaddu ay sii xoogaysato. tallaabadan dawladda Kenya ay qaaday ayaa ku soo aadaysa iyadoo weli xiisadda u dhaxaysa Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay marayso halkii ugu sareysay. waxaana ciidamo aad u fara badan ay maamulka Jubbaland ay geeyeen deegaanka Ras Kamboni oo Arbacadii ay kala wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxaana laga cabsi qabaa in mar kale ay dib u soo weeraraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee laga saaray deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose kuwaas oo ay dawladda Soomaaliya diyaarado ku geysay 25kii bishii November ee la soo dhaafay. isku soo wada duuduubo xaaladda ayaa weli ah mid aad u cakiran mana jirto ififaala muujinaya isu soo dhawaasho u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. History is what it would be. iyo weliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay.